Badhasaabka Gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay Gudida qabanqaabada xuska 18 May oo ah maalin si weyn ugu weyn guud ahaanba bulshada reer Somaliland. Gudidan oo saaka uu magacaabay Badhasaabka Gobolka Togdheer ayaa ka koobnaa 13 xubnood, waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan. waxaan imika idin yeelin doonaa magacyadii Gudida oo ka kooban 13 xubnood. waxa uu horeeya Sheekh Maxamed Yuusuf Abdirahmaan meeyarka magaalada Burco waa gudoomiyaha Gudida. gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Diiriye Xayd oo ah gudoomiye ku-xigeenka Gobolka Togdheer. Abdi Maxamed Ciise oo xoghaye u ah ahna xoghayaha xarunta maamulka Gobolka Togdheer. Saleebaan Maxamed Maxamuud isuduwaha wasaaradda maaliyadda isuduwaha wasaaradda horumarinta maaliyadda. shan Ismaaciil Xayir isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada. Jaamac Maxamed Cali maareeyaha wakaaladda biyaha Burco. Yuusuf Ibraahim Warsame isuduwaha wasaaradda warfaafinta Mastarilka Case. number 8 Mustafa Sheekh Maxamuud Cumar gudoomiyaha rugta ganacsiga Gobolka Togdheer. 9 Cabdiqaadir Xuseen Mataan gudoomiyaha bacadlayaasha. Xasan Xamdulle Jaamac gudoomiyaasha bacadlayaasha. 11 waxa weeye Seynab Yuusuf Cabdi Saciid gudoomiyaha ururka UNITA oo ah ururada madaxa banaan ee local NGOs-ka ka howlgala gobolka. 12 Ismahaan Jaamac Maxamuud waa Ismahaan Jaamac Tinag waxa weeyaan gudoomiyaha ururka qaranka haweenka naaw ee Gobolka Togdheer. 13 Xasan Jaamac Warsame gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada Gobolka Togdheer. 13 ka xubnood ayaa noqonaya Gudida u diyaar garowga 18 May ee Gobolka Togdheer. waxaan uga soo jeedinayaa Gudida halkan aan ka xaadiriyay inay hawshooda u qabsadaan si hufan oo milgale waa la tartamayaa goboladu way tartamayaan insha Allah bidnillaahi baari. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaynu noqono gobolka koobaad inaynu noqono maca caasimadda lafteeda aynu haruurlaha ku daro. aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. su'aashaas su'aal meesha ku jirta ay tahay de xuska 18 May waa la xusayaa maalintii qaranka. wax dhibaato oo kale oo jira ma jiraan. dadku inagoo sooman na waa xusi karaa waan yara dareemi karaa oo runtii de labada cisho ee hore mar rabadaantu markay cusan tahay dadka waa ku culays. laakiin de wax ma aragtay de inaga hor istaagi karaa ma aragno oo waxa weeyaan hadii ma aragtay aynu inagu dadaalo de waxa la geli ka hore waxa weeyaan waa saacado yar waxa la maraya hadii Allah awood ogolado waa maritaanka waa saacado yar waxa laga yaabaa de 7 subaxnimo ilaa iyo 10 haday ugu dambayso inay ahaato. marka insha Allah intaana de waxa weeyaan inaynu isaga dul qaadano. Abdilaahi Xudayfi telefishanka caalamiga ee Ariel xarunta maamulka Gobolka Togdheer Burco.